السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو دغيستي فضlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar si aad ula socotid muuqaaladana kale. Maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuca xasaasiga ah ee ku saabsan biyaha Samsamka. Mucjisada biyaha Samsamka ah, aragtida sayniska casriga ah ee sirta ka yaabisay reer galbeedka. Inta aan u guda galin warka reer galbeedka, marka hore horta aan idin sheego in arrintan ay tahay mid diini ah. nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa biyaha Samsamka wuxuu hore noogu sheegay inay u taagan yihiin wax kasta oo loo cabo. Haddii aad u cabto caafimaad, Allah caafimaad ayuu ku siinayaa. Haddii aad u cabto dhereg iyo nafaqo, waad ku dhergaysaa. Haddii aad u cabto rajana, Allah wuu kuu fulinayaa. 1400 sano ka hor ayay dadka muslimiinta ogaayeen biyaha Samsamka muhiimadda ay leeyihiin, sida u fiican yihiin, sida caafimaadku yihiin, iyo sida rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam oo biyahaas kaga dardaarmay. Kasoo tag marka 1400 sano ka hor ama xiliyadaas, maanta waxaan rabaa inaan idin sheego in reer galbeedka ku soo baraarugeen muhiimadda biyahan muhiimka ah ee dadka muslimiinta muddada dheer ay cabayeen. maanta garaadkoodu waxa uu tusayaa in biyahan ay laftigoodu ay qaataan oo guryahooda ay geystaan, sidoo kale ay cabaan. waxay la yaabihiin ceelkan yar in ka badan 20 qarni malaayiin qof ay biyaha ka cabayaan oo marna aan gurin, oo aan isbedelin, oo midabkiisu isbedelin, isla markaana aan weligiisba dhalin hal unug oo bakteeriya ah. aad iyo aad ay arrintaas la yaab ku noqotay, waxayna bilaabeen reer galbeedku inay cilmi baaris ay ku sameeyaan ceelkan yar. aan ku bilowno sheeko ruuxday adduunka oo dhan. sanadkii 2003 saynisyahan caan oo reer Japan ah oo ah nin aad iyo aad ugu takhasusay barashada unugyada biyaha oo la oran jiray Dr. Masaru Emoto ayaa soo saaray aragti sheegaysa in biyahan ay yihiin noolo dareen leh. wuxuuna sheegay in biyahan ay saameyn ku yeeshaan erayada, muusiga iyo fikradaha dadka. Dr. Emoto waxa uu isku dayay inuu tijaabo ka sameeyo biyaha caadiga ah ee webiyada iyo tuubooyinka iyo magaalooyinka waaweyn sida Tokyo iyo New York. wuxuuna ogaaday in markii biyahaas la qaboojiyo unugyadooda ay noqdaan kuwo fool xun oo kala firirsan, sababtuna ay tahay wasaqda iyo habnololeedka casriga ah. laakiin maalin maalmaha ka mid ah, nin muslim ah ayaa u keenay dhalinyar oo ay ku jiraan biyaha Samsamka. wuxuuna ku yiri, isku day inaad biyahan tijaabiso doctore. Dr. Emoto wuxuu qaatay dhibic yar oo ka mid ah biyaha Samsamka, wuxuuna dhigay meel qaboojiye ah oo aad u sareysa oo aad u adagtay in biyo ay ku jiraan. kadibna waxa uu saaray microscope aad u weyn oo aad u awood badan oo walxaha yaryar ee dunida soo qabta. wuxuu arkay wax ka naxiyay asaga iyo kooxda kale ee saynisyahanada ee baaritaanka sameynayaba way la yaabeen biyahan intaas meesha ku jira inaysan isbedelinba. unugyada biyaha Samsamka ma uusan u dhisnayn sida caadiga oo unugyada kale biyaha ah. waxayna u dhisnaayeen qaab 6 geesood ah oo aad u dhalaalaya oo kuna dhex jira midabka qaanso roobaadka. waxay u muuqdeen guryo boqortooyo oo ka samaysan baraf aad u qurux badan. Dr. Emoto wuxuu go'aansaday inuu tijaabiyo oo arrintan uu sii wado. wuxuuna qaatay canjarad laga dhex akhriyo kelmadda bismillaah iyo aayado ka mid ah quraanka kariimka ah. wuxuuna agdhigay biyaha. markii uu mar kale microscope-kii runtii uu u dhaweeyay, sidoo kalena quraankii uu daaray, biyihii waa isbedeleen. waxay noqdeen kuwo qurux badan, waxayna noqdeen kuwo iftiimaya oo naqshadoodu ay isbedeshay iyagoo raacaya quraanka la daaray iyo barakada aayadaha quraanka kariimka ah. Dr. Emoto wuxuu buuggiisa caanka ku yiri, biyaha Samsamku ma ahan biyo caadi ah, waxay leeyihiin xasuus, waxay leeyihiin awood ay ku maqli karaan, ku kaydi karaan, kuna falanqeyn karaan erayada wanaagsan. waa biyaha kaliya ee dunida ka jira ee unugyadooda aysan marnaba burburin ama aysan isbedelin ama uusan wax isbedel ku imaan. waana sababta reer galbeedka ka yaabisay. haddii aan arrintan dhanka unugyada aan si gaar u eegno, waxay leeyihiin waxaan wax weligeed dhacay maahan, waa la yaabaya. marka reer galbeedka ayaa kusoo qulqulaya dalka Sacuudi Arabiya iyagoo doonaya in biyahan ay cabaan. waxaa la sheegay in sanadkii 2023 24 ilaa 25 biyo badan ay galeen dalalka reer galbeedka oo Samsamka ah, iyadoo
dad badan oo khubaro ah iyo dhaqaatiir guryahooda laga helo biyaha Samsamka oo dalka Sacuudiga ay kasoo dalbadaan. Sanadkii 1971 dowladda Sacuudiga waxay go'aansatay inay shaybaar caalami ah oo ku yaala Yurub u dirto muunado kamid ah biyaha Samsamka si loo hubiyo caafimaadkooda. Kadibna nin dhakhtar ah oo reer galbeed ah oo u sheegay in biyaha ceelka Samsamka aysan caafimaad qabin maadaama ceelku uu aad u hooseeyo oo ku yaalo bartamaha magaalada. natiijada ka soo baxday shaybaarkaas rasmi ah midowga Yurub waxay noqotay mid dadkii oo dhan afka ay wada qabsadaan. shaybaarku waxa uu xaqiijiyay biyaha Samsamka ay yihiin biyo dabiici ah oo ka duwan biyaha kale ee dunida laga cabo saddex arrimood dartood: cadadka kaalshiyamka iyo magnesiumka. biyaha Samsamka waxay qani ku yihiin macdanta kaalshiyamka iyo magnesiumka. macdantana waxay aad ugu sareeyaan biyaha ku jira caadiga ah, way ka sareeyaan biyaha caadiga ah. taasna waxay ka dhigantay in kaalshiyamku wuxuu dhisaa lafaha iyo ilkaha, halka magnesiumku uu nidaamiyo shaqada wadnaha iyo neerfayaasha. tana waxaa sabab ah qofku markuu cabo biyaha Samsamka isla markii wuxuu dareemayaa firfircooni, daalkiina uu ka baxayaa, tamar rabbaaniyana oo kusoo degaysaa. waxa kale ay sheegeen cadawga bakteeriyada ama curyaha fluoride. biyaha Samsamka waxa ku jira xaddi dabiici ah oo runtii bakteeriyada la dagaalama. curyahana wuxuu caan ku yahay inuu dilo jeermiska iyo bakteeriyada. taas darteed ceelka Samsamka gudihiisa lagama helo wax bakteeriya ah oo noole ah oo wax u dhimi kara. mana jiraan wax jeermis ah, mana jiraan bakteeriya, mana jiraan wax fungus ah. heerka waxa la yiraahdo kale waxa kamid ah heerka la yiraahdo alkinka ee biyaha Samsamka waxa ku dhex jira 3.8 ilaa iyo 8. tana waxay ka dhigan tahay in yihiin biyo saafi ah oo biyahana waxay caawiyaan inay jirka saaraan aashita badan, waxayna dejiyaan caloosha, waxayna caawiyaan difaaca jirka iyo la dagaalanka runtii cudurrada khatarta ku ah sida kansarka, taasoo inta badan ba dadka deegaanka ay dhibaato ku qabaan. ugu dambeyntiina aan aamino deegaanka oo ceelkan ku yaalo. ceelka Samsamka waxa uu ku yaalaa meel dooxa ah oo ay ku hareeraysan yihiin gebi ahaanba dhagaxyo adag iyo saxaro kulul oo aad u ku dhow Kacbada barakeysan. marka bal aamin ceel meeshaas ku yaala oo biyihiisa maantay reer galbeedka iyo cid kasta ay u soo qulqulayso. dhirka ceelkan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay 30.5 mitir, taasoo ka dhigan dhismaha guri dhowr dabaq ah. waa ceel aad u yar haddii la eego ceelasha casriga ah ee laga qodo boqolaalka mitir ah. injineerada biyaha waxay xisaabiyeen in ceelkan yar uu soo saaro qiyaastii 12 ilaa 18 litir oo biyo ah halka ilbiriqsi. taas waxay ka dhigan tahay in daqiiqad gudahood uu ceelkan soo saaro 10 litir. marka biyaha la cabo oo heerka ceelkaas uu hoos u dhaco waxay qaadataa kaliya 12 daqiiqo inuu soo buuxsamo isagoo gaaraya heerka ugu sareysay. waa maxay matoorka ama bambinka noocaana oo shaqeynaya ilaa iyo 4000 oo sano? ma jiraan bambin aadanku sameeyay mise biyaha waxay kasoo burqanayaan dhagaxyo adag oo hoos kaga xirma dooxada Maka. saynisyahanada dhulka waxay isku dayeen inay raadiyaan halka ay ka yimaadeen biyaha xaddigaas leeg ee aan istaageen, laakiin waxay ogaadeen in qaab dhismeedka dhulka markuu yahay mid u gaar ah oo ceelkan kaliya aan laga helin caalamka. asaga kaliya ayaaba caalamka oo idil sida ceelasha iyo dhulku ay ka duwan yihiin buu ka duwan yahay. mid kalena arrinta la yaabka leh waxa waaye in biyaha caadiga haddii ay meel fadhiyaan dhowr bilood way soo urayaan, midabkooduna uu isbedelaya, way dhalaanayaan oo dulin ayaa ku dhalanaya. laakiin biyaha Samsamka waxaa jira dhalooyin lagu keydiyo dhowr iyo 10 sano oo weli la cabayo sidoodiina ay yihiin aysan waxba iska bedelin. arrintan runtii waxay ku noqotay reer galbeedka sheekooyin ay aad iyo aad u hadalhayaan oo ay buunbuuniyaan oo